waxaynu arkaynaa in basharka maanta inuu ku qariqmay jaahiliyadii kana tegay caqiidadii ka tegay akhlaaqdii islaamka ka tegay aragtidii islaamiga ahayd oo ka tegay noloshii islaamiga ahayd waxay maraysaa in baarlamaanadii iyo meelihii laga soo bandhigo oo arrintii laga soo cardiyo oo la yidhaha adduunku waa inaan ka mid noqonnaa communitiga caalamiga ah ayaa arrintaa goostay waa inaan fasaxnaa waa inaan sii daynaa yacni kuwo kaloo xildhibaano ah oo rag ah ayaa ka dambeeya haweenaa loo soo dhiibaa way fulineen isla fiicantaa waa qof haweena oo dadkii xishood ku dambayn lahaa dadka u yahaydina ku dambeeyay ahayd wixii maanta waa laga tegay halka ayay mareen islaamka loo noqdo oo qofka caqiide ay waxaas ka reebto iyo alla ka cabsi iyo aakhira lagu xisaaba iyo mujtamac muslim oo shariicadii islaamka timiday oo xuduud ka oofinaysa qofkii gobol dhaaf sameeya wax xun sameeya xuduudaas lagu oogaa maalinta unbaa ay imaan kartaa iyadana wax akhlaaq la yidhaahdo laakiin akhlaaq waxa la yidhaahdaa hadda waa la burburiyey بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم داوديال وبرنامج كأني كلن كجمعها جماعة سادعون بالحق إذن كوتا لقشي حلقيسي شنات سلسلة دي أنا قوم قعدرني ماذا بعد الحق إلا الضلال حلقة عاوحا كجحلينا واقع بشرية دمان النول إياه هلك واقع سكتشوجو أخلاق إياه قيم كإسلامية حلقة وحاجة لقب قادنا يا دكتور عبد الرحمن ظاهر أويس يا دكتور عثمان دكتور عبد الرحمن وحاد بالنص صورة ديسا واقع مانت بني آدم وكنو لي هاي إياه سيدا واقع عاصي ماشي وكتاقين هاي أخلاق دا إياه قيم كإسلامية بسم الله الرحمن الرحيم سيدا كم وقتا واقع بشرية دا كنو الأرض دا قود كيدا مانتا واقعoodu waxa weeyaan waaqic ka hor imaanaya ama ka soo horjeeda waaqicii mujtamaca islaamka aw lahaa waaqicii islaamku ou dalbay akhlaaqiyaadkii ou dalbay asaasiyaadkii iyo mabaadidii akhlaaqiga ahaa oo islaamka uu ku tarbiyeeyay dadka ku tarbiyey kuwa ka soo horjeeda waaqic ka soo horjeeda ayuu waaqica basharku maanta yahay waaqic ka soo horjeeda qaacidadii asaasiga ahayd oo akhlaaqiyaadka islaamku ku dhisnaa oo ku dhisan aragti kale oo dad uu samaystay aragtidaasoo aan Allah subxaanahu wa tacaala waxba u dhigaynin waxba u ogolayn ujeeddadii Allah subxaanahu wa tacaala oo ka ahaa akhlaaqiyaadkii iimaaniga ahaa oo ku faral yeelay dadka aan eegaynin oo aan kafad u taagaynin ayuu maanta ku sugan yahay waaqic ama tasawur ku dhisan waaqic ku dhisan aragti ay u arkayaan iyagu ay samaysteen bini aadamku inuu xor yahay inuu asaga uusan ku ahayn mid laga dalbayo ama waajib ku ah inuu awaamir ilaahay qaato tusaalooyin ilaahay qaato tashriicada la xaggiisa ka yimid qaato oo akhlaaqi ah ee insaanku uu yahay xor ayay maanta waaqica basharku uu yahay markaan misaal usoo qaadan Allah subxaanahu waaqica basharka maanta uu ku sugan yahay markaan eegno sidii Allah subxaanahu wa tacaala u dalbayay islaamku u dalbayay alla in loola tacaamulo oo ah in la rumeeyo keligii inuu yahay keligii u mudan yahay cibaado
keliga uu mudan yahay uluuhiyada iyo rabbinimada keliga uu leeyahay wax lala aysan jirin ictiqaad ahaan loo qaato qaadashadaasuna ay tahay mid khuluqi ah cibaado ahaan iyo shacaa'ir ahaan in loo fuliyo loo qaato taasuna ay tahay akhlaaqiyaad alla lagula tacaamulayo shareeco ahaan loo qaato axkaamtiisii iyo waajibaadkiisii iyo maaragtay waxa weeye manhajkiisii la qaato taasina ay tahay akhlaaq suluuki ah oo alla lagula tacaamulayo oo alla subxaanahu watacaala waxdaaniyadiisa lagu qirayo wax allaale wixii kale oo akhlaaqiyaad islaami ahna ay ka dhalanayaan intaa waaqic noocaasa bini aadamka maanta jooga inuusan ku noolayn inuu ka soo horjeedo allah ay shariig u yeeleen allah manhajkiisii ay fogeeyeen oo noloshooda ka fogeeyeen cibaadaadkiisii shacaa'irtiisii ay ka fogeeyeen kullahaana waa suluukiyaad khuluqi ah weeye oo ay ahayd inaan lagula tacaamulo sidaas darteed nolosha bini aadamka akhlaaqiyaadkii alla rabay islaamku rabay mid kaba qabood sida aad sheegtay akhlaaqda markii fasaadkaas uu ku dhacay waxaa ka farcamay fasaad ku dhacay qaacidadii guud ee akhlaaqda ay lahayd qaacidadaa guud ama majaalaadka fasaadka uu ku dhacay waxaa ka mid ah uguna horeeya alamru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar oo ah in macruufka la isfaro xumaantana la iska reebo si gaar ahaaneed macruufka ugu weyn ee la isfarayana waa towxiidka munkarka ugu weyn ee la iska reebayana waa shirkiga dr cusmaan maxaa intaa raacinaysaa ku dari bismi illaahi raxmaan raxiim sideeda akhlaaq xumada dhacday markii caqiidadii islaamka laga tegay iimaankii dadka wanaagga fari lahay xumidana ka reebi lahay quluubtii uu ka marnaaday waxa fasaadka dhacay iyo akhlaaq xumada dhacday meel kastoo nolosha ka mid ah bay gashay bal aan ka miithaalina hal meel oo ka mid ah oo akhlaaq xumada gashay xagga dhaqaalaha iyo mucaamalada bani aadamka ka dhexmaraysa arrimaha ku tacalluqa dhaqaalaha sideeda dhaqaalaha islaamka qaacidada ugu weyn oo u dejiyo waxaa waaye takaaful iskafaalaqaad iyo isxambaar jaahiliyo tii ugu horeysay iyo tan maanta joogto waxay ku dhisan tahay mar haddii nidaam islaami meesha uusan jirin waxaa taas cagsiga u ah oo ah arriba islaamka uu yaqaano oo ah dulsaar oo ah inta hantida haysata dadka wax u baahan oo deyn iyo wax ka qaada lahaa oo wax dhibaatooyinka haysa iskaga fududay lahaa in takaafulka islaamka oo qardi xasan baa islaamka la yidhaahda waman da aladii yuqridu allah ayaa qur-aanka ku badane yaa amaahinaye in aan lisu naxariis falin oo qofkaa baahan faa'idiisa inta laga faa'iidaysto dulsaar waxaa la yidhaahdo lasii waa ku siinayaa laakiin iyadoo intaas ay saaran tahay ii soo celinay ribada la sheega waa taa nolosha dhaqaalaha adduunka oo dhan dhammaanta nidaamka ribowga ee bangiyada iyo hay-adaha maalka kulli wax lagu tacaamulo waa taa haddaba marka maxay tii keentay markii intii hantida haysatay dadkii u baahnaayo waxyaala xataa mashaariic oo maaragtay haddii loo maalgeliyo ay berri wax ka heli lahaayeen ama in dulsaar oo wax alla wixii faa'iido heli lahaayeen iyo waxay shaqaysan lahaayeen oo dhan inay mar labaad ku noqonayso qoladii hantida iska lahaa markii muddo socotay nidaamkii ribowiga ahaa caalamkii wuxuu hadda iskugu dhurtay hantidii oo dhan inay ku aruurto dad yar gacantood oo bashariyadii inteedii kalena ay wada dhididayso ay soo maaragtay tacbaanayso faa'iidadii iyo wixii kasoo baxayna ay guranayaan intii yareed oo hantida lahayd oo ayagana lacagtooda ay sii sida qur-aankaba ku sheegay adcaafan mudaacafa hantidoodii unbaa sii labalaabmaysa ilaan shaygay bixiyaanba macal faa'iidadii iyo asalkii ay soo ceshanayaan ayagana hantidoodii waa sii labalaabmaysaa qoladii kalena faqri ayay ilaan wax alla wixii kusoo dhidideen macal faa'iidadii laga qaatay faqrinimadii lay markaas kusii jirayaan halkaas baa timiday
maxaa intaa maalkii kale inuu gacantooda ku aruuray kuma arrinta kuma sinaanine awooddii oo dhanna gacantooda ay ku aruurtay sababtoo ah dadkii hantida lahaa ayaa siyaasiyiintii iyo kuwii xukunka qaba lahaa oo sharciyada iyo qawaaniinta dejinayay ayagaas maalgelinaya ayagaa soo saaraya ayagaa soo rashaxaya ayagaa dicayadda u samaynaya maalgelintii ayagaa u samaynaya madaxdii saasay ku noqonayaan haddee madax la maalgashaday macnaheeda waxa waaye sharciyada ay dejinayaan iyo qawaaniinta ay soo saarayaan waxay u danaynayaan nimankii maalgashaday oo hantida lahaa markaas maxaa imaanaya marka siyaasiyiintii xukunka gacanta ku haysay iyo hantidii quladii lahaa hal guruub ay isku noqdeen oo danahooda ilaashanaya faqad bashariyadii inteedii kalene masaakiinta la dhiig miiranaya oo juhdigoodii iyo dadaalkoodii oo dhan iyo dhididkoodii la cunaya ayay noqotay bal akhlaaq xumada halkaa ka timiday dadkaas qalbigooda ilaah iyo cabsidiisa ay ka maran tahay iyo takaafulka islaamka isu naxariisashadii iyo iskafaalaqaadkii markay meesha ka baxday bal kaalay arag foolxumada maaragtay foolxumada dhacday marka maanta marka sideeda akhlaaqda markaan ka hadlayno akhlaaq wanaagsan islaam le laga helaa qof mu'min oo qalbigiisa iimaan uu buuxiyo aakhare ku xisaabtama allihiisana la xisaabtamaya markay dhacday halkaa mithaal baan soo qaadanay oo xaggii dhaqaalaha akhlaaq xumada ka dhacday iyo isku dulnoolaad iyo dhiig miiradka ka dhacay ayaa mithaal u ah waaqica basharka maanta uu ku nool yahay markaa fiirino waxaan arkaynaa ficlan insaanka inuu isaga yahay midka burburinaya akhlaaqda bashariyadda isaga ayaana keenaya in akhlaaqda xun ay faafto mujtamacaadka dhexdiisa ay ku faafto maxaa intaa raacinay dr cusmaan haddaan miithaalin akhlaaq xumada ka dhacday dhinaca dhaqaalaha iyo cadaabka bashariyada maanta haysta oo u soo jiiday akhlaaqda islaamka marka laga tegay bal aan dhinac kalena ka miithaalino arrimaha bulshada iyo akhlaaqda dhaqanka iyo usluubta iyo anshaxa wanaagsan waxaad ogtihiin islaamka anshaxa wanaagsan asal wuxuu ugu dhigay qoys usra oo awlaad isla korsato rag iyo haween isguursado qoys dhisay maxaan ku ihahdaa anshaxooda iyo usluubtoodane uu xafidan yahay jaahiliya oo dhan waxay iskugu tagtay in la burburiyo meesha oo cilaaqada rag iyo haween ka dhexeeya sida xayawaanka oo kale laga dhigo oo xuduud kale xiraysa aysan jirin xalaal iyo xaaraan wax la yidhaahdana aysan jirin oo weliba in la cilmiyeeyey fan la yiray marka la samaynaa waxaasoo dhan ilbaxnimadaa keenaysa fanka iyo suugaantaa keenaysa la yidhi oo magacyadaas loo bixiyey dhinac kalena asalba looga dhigay xorriyad haweentana waa xor waxay rabtaa ha samayso wax farageli kara mala dhaqankeeda iyo wixii ay maaragtay rabta ha samayso ninkana xor weeye wax farageli kara male xuduud xidhayso xalaal iyo xaaraan iyo waxaasaa ceeb ah waxaasaa xil ah waxaas inay meesha kulligood ay ka wadaba xishoodoo dhan inuu meesha ka baxo sababta maxaan ku idhahdaa intaasoo dhan asalka uu ka soo jeedaa waxay tahay marka horeba markii la yidhi qof walibow shahawaadkaada iyo naftaada waxay jeceshahay iyo waxaad ka hesho adiga iyo dooqa wax la dhihi kara diin baa soo faragelshanaysa ama waxaas waa anshax xumo waxaas waa fool xumo wax laga xishoodo waa meesha halaga diin iskaba dhaaf diinaa xarinta iyo allah xarimay iyo cadaabaa beri lagu mutaysana iyo waxaasoo dhan markii meesha ka baxday hadda xayawaanka waxyaala uu ka xishooda ayaa waxa hadda maanta la samaynaa ayay tegayaan meeshaasaa waxaad ka arkaysaa islaamka markuu arrimaha noocaas oo zinada iyo fuxshiga iyo marka uu qawaacid adag ka dejiyey iyo xuduud reebaysa oo uusan qofna ku dhici karin nicmadeeda markaasaad arkay waayahay marka xuduuddii islaamka meesha ay ka baxday oo daysan ay noqotay wixii ka dhacay halkaasay maraysaa nicmada islaamka iyo sharafta iyo ciziga iyo karaamada bani aadamka iyo mujtamac kulligiis kalsooni ay ka dhexayso oo qoysas dhisan oo qoys kastaba iskiisa u dhisan yahay ixtiraamna uu ka dhexeeya qoysaska kale markii meesha ay ka baxday dhibkaasaa yimiday islaamka loo noqdo oo qofka caqiide ay waxaas ka reebto iyo alla ka cabsi iyo aakhara lagu xisaabaa iyo mujtamac muslim oo shareecadii islaamka timiday oo xuduud ka oofinaysa qofkii gogol dhaaf sameeya wax xun sameeya
xuduuddaas lagu oogaa maalintaa unbaa ay imaan kartaa iyadana wax akhlaaq la yidhaahdo laakiin akhlaaq waxa la yidhaahda hadda waa la burburiyey Dr. Cabdiraxmaan dhinaca kale bal naga tusi akhlaaqdan saan u burburtay Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu na leeyahay markuu ka hadlayo bini aadamku siday u hadlayaan siday u tegayaan taxta sifir meel oo maalaa nihaaya ahaan waxaa alla leeyahay subxaanahu wa tacaala ku mithaali inhum ilaa kalancaam yacni sida bahaa-imta oo kale ayay xaggii qiyamka iyo wanaaggii iyo xishoodkii iyo yacni suluugii wanaagsanaa bay ka noqdeen suluugoodii wuxuu la mid noqday iyo tafkiirkoodii sida bahaa-imta markaasuu intaas ugama harine wuxuu yidhi bal hum adal way ka sii fog yihiin way ka sii baadi badan yihiin way fogaadeen meel waxay tageen caqliga bini aadamku ay ku adagtay inuu suuraysto waxaa muujinaya arrintaas maanta qadiyadda anshaxa iyo dadka la ysku fasaxay oo doctoorku ka soo hadla inay marayso shuduud jinsi ah raggii in la isku fasaxo oo iyaga wax iska doonaan wax xayawaanaadku ay ka xishooda ma arkaysid yani ama way adagta inaad aragtid dakar oo min albahaa-im oo dakar kale wax ka doonan dakarkii kii dhadigaa iyo labkii wala isku fasaxay oo sidii bahaa-imtii lamid noqdeen arigii lamid noqdeen oo saasi wax u raadsanaya laakiin bahaa-imtu waxay ka xishootaa awr inuu awr kala raadsado dibi inuu dibi kala raadsado orgi inuu orgi kala raadsado wan inuu wan kala raadsado waxay ka xishooda maantana qadiyad caalamihay noqota oo la isugu imaanayo oo ballan lagu kala qaadanayo oo la iska warsanayo wareeg kasta 5 sano kadibba marka la isu yimaado maxaa laga fuliya laleeyahay xaggee wax maraysaa laleeyahay ayay maanta maraysaa waxay maraysaa in baarlamaanadii iyo meelihii laga soo bandhigo oo arrintii laga soo cardiyo oo la yidhaha adduunka waa inaan ka mid noqonaa communitiga caalamiga ayaa arrintaa goostay waa inaan fasaxnaa waa inaan sii daynaa yacni kuwo kaloo xildhibaano ah oo rag ah ayaa ka dambeeya haweenaa loo soo dhiibaa way fuline isla fiicantaa waa qof haweena oo dadka xishood ku dambayn lahaa dadka u ahayd inuu ku dambeeyay ahayd wixii maanta waa laga tegay halka ayay maray inta aad sheegteen in ka badan ma sifayni karayna mujtamacaadka basharka ee maanta jira waxaynu arkaynaa in basharka maanta inuu ku qariqmay jaahiliyaddii kana tegay caqiidadii ka tegay akhlaaqdii islaamka ka tegay aragtidii islaamiga ahayd uu ka tegay noloshii islaamiga ahayd sidoo kale bini aadanka markaan maanta fiirino tilmaamaha laga soo sheekeeyey ama tilmaamahaas ayaa waxay nooga filan yihiinba in ay noo soo bandhigaan calaamadaha jaahiliyadda ee ka muuqda basharka maanta jooga iyo sida calaamadaha tilmaamahaasi ay u soo bandhigayaan xaqiiqada dacwada islaamka waxa hadafkeeda u yahay iyo dadka ducaadda ah waxay dadka ugu yeerayaan dacwada hadafkeeda waxa weeye in aadmiga maanta nool in loogu yeero min jadiid in islaamkii uu soo galo inuu caqiidadii islaamka inuu qaato akhlaaqdii islaamka inuu qaato nidaamkii islaamiga ahaa maanta aadmiga jooga markaan waaqiciisa fiirino waxaynu arkaynaa in xaqiiqada ama hadafka dacwada in uu yahay meeshii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam maalinkuu imaanayey meeshuu dadka dacwada aga bilaabay ama barti uu ka bilaabay in maanta waaqaca bini aadanka uu ku nool yahay uu mudan yahay in halkaa wax looga bilaabo daawadayaal intaa waxaan kusoo gabagabeynaynaa
kulankeenii jumcaha ee jamaacatu saadicuuna idinkugu talagashay intaan ka gaarayno kulan kan xiga waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.